رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية ayaa maanta kormeer ku tagay 6 wasaarado oo kamid ah wasaaradaha Puntland isagoo isla maanta xariga ka jiray kaydka qaboojiyaasha dawooyinka ee Puntland ka oo laga hirgeliyay magaalada Garowe. رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية ayaa kormeerka ku tagay wasaaradda arrimaha gudaha caafimaadka deegaanka xanaanada xoolaha maaliyadda iyo haweenka waxa ku weeliyay madaxweynaha Puntland ku xigeenkiisa wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan dawladda dhexe iyo Puntland isagoo warbixino kala duwan ka dhageystay howlwadeenada iyo wasiirada wasaaradahaasi oo tilmaamay dhammaan xarumahan wasaaradaha lagu dhisay barnaamijka dib u dhiska Puntland ka uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku amaanay shacabka iyo maamulka Puntland. kormeerka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo maanta ku sameeyay qaar kamid ah wasaaradaha dawlad goboleedka Puntland ee ku yaala magaalada Garowe ayaa qayb ka qorshaha uu ku ogaanayo baahiyaha iyo horumarada ka jira deegaanadan. ra'iisul wasaaraha Khayre ayaana warbixino aad u soo jiitay waxa uu ka dhageystay mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradahan ay mas'uulka uga ah dawlad goboleedka. markii madaxweynuhu maanta waday uu soo tusay mashruuca dawladnimada Puntland oo lagu dhisay isku tasho waxa muuqatay in horumar weyn aad sameyseen wasaaradihiina iyo jidadkii aad ku dhisateen maskax iyo xoolo ay leeyihiin shacabka reer Puntland. halkan waa goob lagu magacaabay Hidaraac waxay ku taallaa duleedka magaalada Garowe. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa kula soo dhaweynaa ugu sameeyay qaar kamid ah ismada Puntland. kulankan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la qaatay qaar kamid ah ismada Puntland ayaa mid ay ku soo dhaweynayeen isla markaana ay wax wareysanayeen hanaanka dawladnimo ayna ku muujinayeen doorka ay ka qaadan karaan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa odayaasha dhaqanka Puntland kala hadlay inay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed isla marhaantaana ay hormuud u noqdaan dawladnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. qaar kamid ah ismada uu ra'iisul wasaaraha xukuumaddu kulanka la qaatay ayaa ku bogaadiyay maatinkiisa Puntland isla markaana ugu hambaliyay hoggaankiisa wanaagsan ee uu ku hogaaminayo xukuumadda oo ay sheegeen inay tahay mid ay ka go'an tahay soo celinta karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay dawladda maanta jirto federaalka shabaag baa lugaha kaga xiran wadadii macaankaas ku soo noqon lahaa iyagu cagtay ku hayaan Soomaaliyadu ay hayaan dadaal bay hayaan juhdi bay hayaan waa ognahay waxa la yiri mas'uul meel wada joogto warash kuma seegana idaacadahan dhageysana waliba ra'iisul wasaaraha Cali Khayre dadaalkiisa uga mahadcelinayna waan ugu ducaynay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ku amaanay odayaasha dhaqanka Puntland doorka ay ka qaateen nabadgelyada iyo xasiloonida in sharaftii karaamada ummadda Soomaaliyeed sida hore dhaanto inaad aragteen dawlad madaxdeedu ay aqbashay inay wada shaqeyso isu dulqaadatana inaad aragteen madax aqbashay inaysan dalkooda musuqmaasuqin intaas waxaan leeyahay salaadiinta halkan joogta waa aasaaskii dawladnimada. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Garowe.